dad walaalahay iyo gabdho walaalahay ah intaba meelahan oo kale markuu qofka joogo run ahaantii waxaa la yiraahdaa haddii meel qof boqora oo joogo ama qof malik ah Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmahaaga ha dhaqaajin waayo waxa laga yaabaa in bodyguard boqorka ay u qaataan inaad wax ku tuuraysid oo kale ay marka dhibaato ku geystaan haddii uu weli uu meelahaas ka soo dhow yahay waxaa la yiraahdaa waa inaad ilaashataa niyadaada waayo niyada waxaa la yiraahdaa karaamadooda waxaa ka mid ah inay ogaan karayaan waxyaabaha adigu niyadaada u haysid laga yaabay marka ay inay ku dhaawacaan haddii ay meesha ka soo dhow yihiin dad aqoon leh cilmi leh waxaa la yiraahdaa afkaaga ilaasho waayo waxaa laga yaabaa intiinaas oo aqoonta leh haddii aan wax qaladaas aan sheego hadhowdii su'aalaha inaad ugu badisaan marka waa inaan afkayga ilaashado taa micnaheedu maaha inaan leeyahay yaan waxba la weydiinin marxaban you are welcome intii karaankayga oo aan kari karaayo baan kaga jawaabaya haddii ilaa yiraahdo mawduuca oo aan maanta ay siriyamaad wax ka sheegtaa waxaan u malaynayaa waa kan meelahan ku dhegan waayo exactly maba aragani waxa waaye mawduuc ku saabsan waxbarashada Soomaaliya taariikhiyan khaasatan waxbarashada islaamiga iyo kaalinta ay ka ciyaari karto horumarka diinta iyo tacliinta guud ahaan aqoontu runtii waa wax qofka hagaaya qofka aqoonta leh waa qof hagan waa qof runtii bisel waa qof ay tacliintu waxay ku baraysaa mas'uuliyadda ay ku baraysaa qofka aqoonta leh iyo qofka jaahilka si uma arkaan mas'uuliyadda marka aqoontu way ku hagaysaa waxay ka dhigaysaa qof mas'uul ah waxay ku diidaysaa in aad gashid gafafka qaarkood ay galayaan dadka aan aqoonta lahayn ayada ka ilaalinaysa the more educated you are haddii yani ay tacliintaadu ay badan tahay inta ay badan tahayba waxaad noqonaysaa qof caafimaad badan waayo tacliintii baa ku diidaysa masalan waxay ku tusaysa waxyaabaha oo cudurrada laga qaado waxyaabaha lagu buskoodo waxaasoo dhan bay ku tusaysa marka waxaad noqonaysaa qof aad iyo aad u fiyow xataa physically u fiyow baad noqonaysaa haddaad aqoon leedahay waxay kaa dhigaysaa oo kale tanaad wax la yidhaahdo tanaad waa qof xoolo leh hani ay kaa dhigaysaa waayo aqoontii baa ku baraysa si loo sameeyo dhaqaale ay ku baraysaa qofka jaahilka ma samayn karayo dhaqaale macno leh the more educated aad tahay waxaad noqonaysaa qof xilkas ah xikmad leh waxaad noqonaysaa qof caqli badan isla mar ahaantiina waxaad noqonaysaa qof run ahaantii isku kalsoon aqoontu waxay kaa dhigaysaa qof kalsooni ay soo galayso spiritually waad isku kalsoonaanaysaa marka haddaan eegno waxbarashadii ama tacliintii islaamiga ah Soomaaliya ama intaan tan Soomaalida gelin yani guud ahaan aan eegno islaamku xaguu ka taagan yahay waxbarashada islaamku of course waxaa source u ah quraanka iyo xadiidka saan ka warqabno marka balan eegno xoogay quraanka muxuu ka leeyahay waxbarashada quraanku waxa ka buuxa aayado wada tilmaamaya faa'iidada iyo qiimaha ay aqoontu leedahay iyo waxbarashada aayadda ugu horeysa oo alayhi salaatu wasalaam ku soo degtay
ونكور قبنا وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة السقاشن اللي حاد يعني مركا أخرسكو وحياها أمهم سن وحبرشة قف وحخرين يقانا وقف وحيقانا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أفرتاس آيات waxay tilmaamayaan really si oo cadaan ah waxay tilmaamayaan waxyaabaha asaasiga ah oo waxbarashada runtii ka mid tahay akhrintu waa asaas علم بالقلم قلنا wax lagu qoro marka qofkii waxba qoraya wixii uu qorayna wuu akhrin karaya marka xigmadda weyn oo suuraddan tilmaamayso waxa waaye labadaas arrimood qalin iyo akhrin afafka marka laga warramaayo waxaa la yidhahdaa qofka waa inuu wax akhrin karaa waxna qori karaa qofkii labadaas isku haysto waxaa keliya ka maqan hal shay baa ka maqan waa fahmiga wuxuu qoray oo akhrinayo marka waan arki doonaa masalan haddaan soomaalinahay annagoo yaryar ayaan waxaan qori jirnay akhrin jirnay aan afkayga ahayn marka dugsiga gashid yani wax yar ka bacdi af carabi baad qori karta waadna akhrin kartaa waa waxyaaba wax weyn wey waxa kaa maqan keliya waxaa weeye ma fahamtay waxaad qortay oo aad akhrinaysid marka akhrintii iyo qoridii aragnay inay muhiim tahay suuradda 86aad suurat alqalam yani suurad danbaaba magaceedaba loo bixiyay alqalam nuun walqalami wamaa yasturuun mar labaad waad arkaysaa ilaahay baaba ku dhaaranaya qalankii qiimaha uu leeyahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku dhaaranaya wuxuu leeyahay walqalami wamaa yasturuun qalinka iyo wuxuu qoro ayuu ku dhaartay mar labaad waxaad arkaysaa marka qur-aanka soo u tilmaamayo xikmadda iyo faa'iidada ku jirto waxbarasho tons of ayats aayado fara badan baa ayaa tilmaamaya isu muqaaranaynayo between qofka waxna aqoonin iyo qofka kale yani waad ku wada warqabtaan masalan haddaan soo qaadano suurat zumar 39 aayadda 9aad waxay leedahay hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun miyay sinaan karayaan intaa aan kaga baxno qur-aanka xadiidka aan u nimaadno xadiidka calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaan inuu leeyahay اطلب العلم أو طلب العلم من المهدي إلى اللحد waxbarashadu waxay soo bilowdaa markaad dhalatid ilaa aad ka dhimatid bay ay soconaysaa da kuma xiro as long as adigu aad nooshahay wax waad baran karaysaa marka taas waa dhiirigelin oo runtii xad dhaaf ah yani qaar baa waxay odhanayaan malaada-daas markii la gaaro waxba lama barto maya yani xilli kasto waqti kasto adooma maadaama aad caafimaad qabtid aad nooshahay waxbaad baran karaysaa ilaa aad ka dhimatid xadiid kalaa jira oo nabiga uu nagu dhiirigelinayo inaan cilmiga raadsano meel allaale meeluu jiro اطلبوا العلم ولو في الصين النبي عليه الصلاة والسلام وقتها وحو جوغا حجاز مكة iyo مدينة meelahaas u dhaxeeya markaas wuxuu leeyahay raadsada cilmi ilaa ad China hatta ka gaaraysa nabigu waagaas mala uu ka warqabay China in maalin maalmaha kamid ay noqon doonto dawladaha xoogga afkoodii in loo baahan doono ayaa laga yaabay حديث لاجرا أورنايو طلب العلم فريضة وواجب على كل مسلم ومسلم يعني كبر يويلبا وكواجب يعني مركا
axaadiid fara badan baa iyadana tusaysa in waxbarashadu ay qiimo weyn ay leedahay. aan u nimaana haddaba dhankeyna Soomaaliya muxaadarada ama sheekadu meesha ay u badnaan doonto Soomaaliya iyo waxbarasho islaamiya. nasiib wanaag haddaan nahay Soomaali run ahaantii islaamku wuxuu soo gaaray mar hore. culamada qaarkood waxay yiraahdaan islaamka Soomaaliya wuxuu soo gaaray intuusan xataa Madiina gaarin, Madiina al-Munawwara, Madiinatu Nabi intuusan gaarin buu soo gaaray Soomaaliya ayagoo daliishanaya hijrooyinkii la soo aaday geeskan Afrika, hijra al-ula wa thaniya ila al-Habasha. marka nasiib baan u yeelanay inaan muslimno qarnigii koowaad ama cahdigii koowaad oo islaamiga inaan muslimno. marka waxbarashadeennii oo islaamiga ah sidee bay maartay ay u shaqeynaysaa? waxbarashadeena waxay ka soo bilaabmaysaa dugsiga quraanka ay ka soo bilaabmaysaa. dugsiga tallaabada koowaad oo dugsiga oo aynu soo wada marnay saan u malaynayo waxaa la yidhaahdaa fedheesis. ilmihii yaraa 4 jira ayaa macallin loo geynayaa, waa registration haddaad aragti maaragtay, waa marka la qoraayo qofka magaciisii oo kale weeye. fedheesis waa bilowgii dugsiga, macallinkii ardadiisiiba ayaa laysu introduce garaynaya. kadib macallinkii wuxuu bilaabaya ardadii maadaama la baray inuu wax yarahee sahlan inuu wax u bilaabo si aysan dhibaato ugu noqonin waxbarashada. anigu macallin baan ahay, for instance haddii kalaaskayga maalintii koowaad aan la kulmaayo haddaan siiyo quiz oo aada u adag, ardadii waxaa laga yaabaa berrito inaysan kalaaskayga xataa inay drop gareeyaan oo yidhahda macallinkan waa mid dhib badan lagama baasi karo. marka waxaan siiyaa quiz oo sahlan baan siinayaa oo ay wada keenayaan 80 90 100, waxay keenayaan grade fiican bay keenayaan. gradually baan usii adkeynaya sidaas oo kale ayaa waxaad arkaysaa waxbarashadii dugsigii Soomaaligii macallinkii wuxuu uga bilaabayaa wax sahlan ayuu ka bilaabayaa. ilmahani af carabi ma yaqaanin, marka waxaa la baranaya wax la yidhaahdo rabbi yassir walaa tucassir cawnaka. rabbi yassir walaa tucassir cawnaka yaa rabbi yaa ilaahi ya allah. xadiid baa jira run ahaantii oo arrintaas xoojinayo maxay macallimiinta dugsiga Soomaaliyeed ay sidaa u yeelayeen. sayidna maxamed sala allahu calayhi wasalam kan shaqeyn miyas ya حاجة وين استاهل. bilowgiisi nabigu wuxuu diri jiray dad diinta fidiya oo quraanka dad soo bara. yani dadkii kow uu diray waxaa ka mid ahaa sayidna Mucaad ibn Jabal oo loo diray xagee loo diray Yemen. nacam waxaa weheliyey Abu Muusa al-Ashcari, labadaa qofba wuxuu u diray Yemen asigoo markaa yani ay tahay waanadiisii markaad meesha tagtaan dadkii waxbaad baraysaan, waad waaninaysaan, waad hanuuninaysaan and so forth. xadiidkaasa wuxuu oranayaa al-Bayhaqi baa soo warinaya yassira walaa tucassira, u sahla maaragtay diintu waa inay dadku u sahashaan aysan ku noqonin mid dhib badan. yassira labadoodii way Mucaad iyo sayidna Abu Muusa, walaa tucassira.
وحول وبشر ولا تنفر وبشارة وحفي عن بقى ما تيجيس والصعدة ولا تنفر أنا كإرينا ويسر كعربي مركب نفس الحكمة يا ماشي كجوز مركي أو أنا أسيقه ومولي قراك وبلابن وحفظنا أيوه ربي يسر ولا تعسر عونا مركي عنوجي مركي أو إن أنت مركو سميه وحلو بالعربية وحلي هذا ألف الحروف الهجائية العربية ألف الكردوي ألف وحمالة أيوه بالعربية ألف كاسو وحكوجرا يمدو إن علماء الصوماليات بقى ألف كي عربي جها وحي وي صوماليين سو أرد يعني مارتي إيشان دبعتوه نقول إن ألف وحمالة ألف كعربي عربي لكن وحمالة هو صومالي ألف الكردوي وصومالي وايه مركا عنوجي وحو يقانو أو أفكيسية يوحو كلفايا وحنا أفكيسية هين مدو كجرايا ألف كوات قانان وحو يريه وصو كركرده مثلا وحاجة أنا ألف مركو دميو وحو قلايا مركو تكبحو وحو قلايا مركو دميو وحو قلايا مركو دميو وحو قلايا أي مركو دميو وحو قلايا أنا نون مركو أنا نون دميو ماشي قدام بيسي وحالي هذا ألف باء يعني مدة كقادة دور برود كقادة ليس ألف كان إيرون دميو by the time أو ألف كده دميو أنوجي وحا أسهلنا يا أو أركي كرايا أو مغلي كرايا وحلونا يا أنت اللو قرو أما ميل لو قرو فرت كتابه أوي ألف بعد أول automatically wuxuu kala saari karaa xuruuftii abjadiga ahaa 8 ahayd ayuu ku kala saaray waa wax aad muhiim u ah taas guusheedana waxa keenay culimadii Soomaaliyeysay alifkii xuruuftii carabiga ahayd in si sahlan loo barto markuu alifka dhameeyo haddana waxa la barayaa xuruuftii carabiga ahayd si xisaab ah ayaa loo barayaa waxa la أبجد هو زحطي كلام سافر يعني الحروف الهجائية العربية أو دن أو أرقام وضعتون نمبرين لي إلى كم بيجاريا تاسمح وكالمين يسهلوا يبركوا وين هذا يعني mathematically إنه سكوت دفتري كراي وحكلا جرجري كراي وحكلا فكراي أي يسهل ليس إيوه يعني حتى ماليو وقاركود مقاعدة قاركود وحيكون سليسين الحروف الأبجدية يعني مثلا تاريخ maalintood dhashay oo kale ama qof maalintood dhintay xuruf baa laga soo qaadanayo leeyahay waa sida oo kale wax weyn markuu abjad ka dhameeyo wuxuu bilaabayaa quraanki a'uudu billah a'uudu markii la deero bunga la diibo bum faataha inta laga community دي أو ما تعرض له مش الجوكتي بومبي كينيان عمبولي كينيان والله فرحة و celebration قول ويو دور بيرود بوحة الوجري ألف كلية كورم فاتحدي بالله بالله يا بركة كبعدي إن حوجي بركو قريتانكي أوسي سهل هذا في سورة الفجر أيها واحد كجرا واحد هذا فصب عليهم ربك صوت حذار مركم ماشي قالوا هذانا بنكر على بهنايا to encourage يعني ماشان إنه سن boring نقولينه أو سن عاجزين أو دكسي مارك هذه يجر إنه وحون السعودان مارك هذه والله حفلات يجر بالله سمينايا مركو فصب رافو وحقلا يا جسكي بوكسي السعودان عما يتسا سورة النبأ مركو لما وحال بهنايا 1 حالين بالبحنايا حالين another celebration يلا سمينا يا مركز مركز جزء بعد ما هذا مركز every جزء ما هذا والناف أريا وين البحية معلم يقول لي سيلين مشار مقاطع يعني هدي أي تون عرضية ما دوري تون عرضية وجوان
haddii dhowr iyo toban ari loo keeno yani runtii yani faa'iido weyn baa ugu jirta yani mishaar ka wanaagsan ma jiro tawaaducan tabarucan bay ka ahayd laakiin communityda waa inay kaalmaysaa macallinkii juz kasta marka la dhameeyo in la bixiyo neef suuratu taha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa markay dhammaato قل كل متربص فتربصوا فاستعلموا من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أنا دوكسي عن قرآن كسو برتي ومن اهتدى دبدي يلا تيجي على البيع قرآن ماشي قاعدين وأنا دريب بس الشيكات وشيء عايزة every juz every وحبان بحنا markaan quraanka dhameynay ama quraanka markii la dhameeyay waxa la bixinayaa qaalin geela ardaygii quraankii dhan buu xifdiyay 140 dhan buu xifdiyay qaalin baa la bixinayaa markaan marka waxaad qiyaastaa qof toban jira oo 140 quraanka kor ka haya waa runtii waxyaabo lagu faano lagu farxo yani meelayo badan baysan ka dhicin runtii caalamka islaami حتى العالم العربي أنا مصر بحكو برتي يعني مسالين الدكسية دو دعاس إلى هركس مقارن لكن في الصومال أنا قلت ونجرا سجال جرا ستير جرا أيام وحن حدينا هنا قرآن أوردن وقري كرنا وتهرب اللي بسوا الشيء وحد نجمع كلية فهمي سيبا نجمع مرك هدي هذا لوضع هيك قريتانكي إيو آخرتي هذا اسمه هيك فهمي very easy وسهلنا يا مش كل ما محاضر باهن تاي مركز سي قرآن فهمت أرددي أو قرآن لما يسي قاركود معلمين بين نقدان ماشي تقولوا ذي بيسكت جوا أنا ما قالوا قارنا واحد ده أنا وحنا باهن هنا نسي كورس ده أقوان يقوم في الله مركز واحد لهذا يا واحد يرادو حرنمو قال حرينا واحد هذا يسميه اليوم فوق كانوا حرينيسا ما هي ستين لعك وقفل العنطة ما هي واسكر هذا يسمى حريم هذا يسمى وحيابها برشيد الصومالي بيمها هي شرفت كل هذا حواي أرضي أما قف حرة هدوه ميلي ماذا ولا سولو بيننا ولا كالمينا حتى دوكسي قبل كده بوجري دوكسي هذه أي dad iska soo socdo quraan barasho qabtina yimaadaan wala soo dhaweynaya wax la yiraahdo tacalluq reer dhan baa lagu leeyahay ardayga adaa ka mas'uula kuntadiisii wuxuu la qabaa caruurtaadii waxay qabaan ayuu la qabaa waa wax reer lagu faano oo dunida meelaha qaarkood aysan ka dhicin waa scholarship oo sanado ah aan cidina wax weydiin marka ardaygii wuxuu aadayaa maraakis ama xarumo cilmiyeed oo ka fog meeshii uu quraanku soo dhameeyay Soomaaliya waxaan ku fiicannahay waxaanu qabnaa xarumo badan aan dhihi karayna xataa waa jaamacado ay ahaayeen waayadaasi oo loo aado waxbarasho oo lagu fahmo af carabiga aan qori jirnay oo aan akhrin jirnay saan u fahmo xarumaha qaarkood xamara ka mid ah masalan Muqdisho waxaa loo soo aadi jiray in lagu barto علوم التفسير كأي حديث درسنا علوم التفسير والحديث هذا برتي حياتنا مقدشوا بالإيمان جري وحكوا عليه حرمه وأذكر قبتها مثلا علماء عرب أمريكا يمادين ابن بطوطة وكبدي هاي وبرها أي مركز حمر يبي وحل دي جي ماشى أي أرضين الدكتور hostels lodgings أو أرضين وبشر معناه هذا محوي ماشاسي waxaa jiray jaamacad baa jirtay oo ardadana ay meel degaan meel wax ka cunaan ay meel kalaasi ku qaataan xalaqaad baa jiray magaalada Marka iyo Baraawe waxaa loo aadi jiray fi culuum falsafa iyo tasawuf qofkii rabo inuu dhanka culuum islaamiga way farabadan tahay waa bad haddii tasawuf iyo philosophy waxaad aaysa Baraawe iyo Marka baardheer iyo Sarmaan waxaa loo aadi jiray culumta taariikhda iyo siyaasadda
magaalada qulunquul iyo harar waxaa loo aadi jiray culum luqada culum luqa naxwaheeda iyo sarfigeedii ayaa loo aadi jiray. waxaa laga yaabaa ardayga xataa markii oo intaa meelahaas wax soo marmaro inaysan weli ku filayn waxbarashadii uu isleeyahay wax kalaa kuusii dhiman. kadib waxaa la aadi jiray xarumo cilmiyeed oo ku yaalo bariga dhexe ayaa la aadi jiray. bariga dhexe xarumihiisi waxaa ugu muhiimsan masalan kuwa shimaal afriqiya ku yaalo, qaahiro oo kale, tunis oo kale, maqrib oo kale. waxaa ku yaalay xarumo cilmiyeed oo lagu barto culuum alislaamiya. shaam maalan damashq waxaa loo aadi jiray qofkii rabo fiqiga sunniga ah qofkii rabo inuu barto. shimaal afriqiya badanaaba waxaa waaye waa multi madhab, madaahib mukhtalifa ayaa laga baran jiray. laakiin almadhab sunni shaam ayaa ku fiicnaan jirtay. xijaaz maka iyo madiina waxaa ku fiicnaan jiray culumtan advanced hadith studies, xadiidka barashadiisii iyo culumta la xiriirta ayaa loo aadi jiray. ardaydan markay soo dhammaystaan culumtooda ogaada intaasi waxay ahayd qof isxilqaamayo oo oon cidna kaalmeynayay oo keliya ay kaalmeynayaan meelaha allaale meelaha uu tago. waxay soo noqon jireen ayagoo golamo waaweyna. Okay. marka waxaa waaye ii sheeg qofkii wuxuu soo noqonayaa asigoo caalim ah, faqiih, muxadith, ii sheeg asigoo ah adiib, asigoo qaadi ah, asigoo culumo badan maaragtay kusoo takhasusay ayuu soo noqonaya. markuu soo noqdana wuxuu bilaabayaa in culumtii uu sii dhiso, uu sii derso, uu sii baro dadkii kale. kaalinta ay culamada Soomaaliyeed ka qaateen yani horumarinta culumta islaamiga xoolo baan gadaal sheegi doonaa mar dhow. laakiin waxaan rabaa intaan intaa gelin inaan wax idinka tuso masalan in la islaamiyo in la Soomaaliyeeyo culumta islaamiga iyo ii sheeg xirfadaha farsamadaha technology-ga oo runtii la xiriira. waxaa dhacay wax yaab leh in ii sheeg ay abuuranto Soomaaliyeynta culumtii islaamiga ahayd iyo farsamooyinka la xiriira ayaa bilaabaysa. runtii iyada loo baahan inaan wax ka ogaano laga yaabo inay soo xusuusiso marka مثلا sidee baa loo Soomaaliyeeyaa barashadii islaamiga ahayd farsamada la xiriirta maxay noqon doontaa. waa kuwa qabteen wax la yiraahdo recycling soo taqaan hal shay oo isticmaalayo oo taas la bedelayo looxa aan quraanka ku qoran jirin waa one of the recycling process. hal loox iyagu wada laba loox ee quraanka lagu dhamayn karo. waayo looxii markaad casharkaaga dhamaysatid ka baxdid saa ku haysaa waa dhaqaysaa mar labaad baa isticmaala cashar labaad cashar saddexaad ilaa intaasoo boqoloo jeer ayaad hal loox isticmaala. marka waa recycling issue. waxaan ka maaranay in maaragtay waraaqo iyo waxyaalo kale inaan adeegsano aan ku kulno yani xadaaradaha kale ii sheeg oo sharqiga ama qarbiga means of writing waxaad arkaysa kuwo dhagaxyo wax ku qoro
وحنا كيسا كوا معنا مريو حقوقه هو حقوقه مثلا بامبو وصوت الجراي لكن سؤال يقول في جيت كاسو دفاعي هل لوح أيوة تو سمايستي يو قرآن في رب العالمين ووحدة الجابة وآدم هو أما بعد دواد الإنك الحبر وصومالية دود الجبتي لوكالي غباسمين أردقي غباسمين وقف سمينا يا علامة وكيف يلبس الدنيا وقف سمينا يا حركة وقف سمينا يا عارف يشبه وحبوا سوق قاسي وحاسوب بحيسة أنقاص أما دواد أو محلي أو لوكال بوينت أن وجدوا حوي إن أن كمار من رواية داسي waxyaabo dibadda loo keenay waxbarashadii guddigeedii laga doortay ku salaysan waxyaabo inagu aan samaysay looxii anqaas saddexaad anqaas meesha lagu shubo jawaab waqtiga aqoonsiga dadka zamiin جيت يبقى القراية وين رواية دوادي على الوشوش ومحلية ما أسمع هذا بسوا عليك قال يمكن شيء وقال محلي جيت بقى القراية كذا أو كذا وحنا ليس locally written books أنت حاشية وفرقولي وحنا نيجي نعرف تنوي فرقولي بحطونا مثلا locally made and waxay sameyn jirnay salli baad u dhigtay ama sidoo la farqiyay ama sidoo magad laga sameeyo hal laga sameeyo qofkii uu siftaa waa masaajidkiisii uu wataa sida halkan uu saaran yahay waa locally made maantana waxa dadkiisa waxaa locally made وسائل الوضوء قبو قلو يعني أبا عن لفظ يا من هذا الرجال الجولي تكون هو يستيقظ بهذا العاقة أو بيد ولا يكتب ويقولوا بطل كينا يختل الوقت في التاريخ وهذا يقول لها وبويس والله كلمة في أوسط أن تصبح والله كلمة وكل دي صبرانة الوقت حساب التكنولوجيا عجيبة وحنا الوقت اللي يسمى مثلا مرياح لحقته فلان هو الفراية من حرنوك مرياح أو محتشم الوقت اللي ميت كبول إلى هذا كبول هو ده اسمه كده حالا سنة يستا كوفيدو سنة locally made وإسلامي coats جاكرو يعني سميسين جديد جبرو يعني سميسين جديد locally made ومن العجائب وما لي وحسمي وحي يعني لقبو ما غشي من قبل لقبو وحوايه معلمكي في عربي سيا يغني مثلا مو غني في عربي يقول إيه سوماليين ويلا بيننا يلقب ويعود هنا تفسير في حديث في قرآن في وحي وطن أي سوماليين والوكل مي institutions وحين الصوماليين حتى مثلا سورة عارفة العيوب لو أقرأ عرفت كيف مثلا سورة المائدة نحن الصومالي ولا أوفها أوفوا بالعقول أوفلا سورة الأعراف نساء سورة الأنفال سورة التوبة سورة إبراهيم لتخرج سورة الحجر ربع مثلا كيسا يعني أنا أسمع سنقول يعني عربي ما عربي كيف عايز يكون سورة الإسراء سبحان الكافر الكافر سبحان الكافر
سورة مريم كاف هي عين سورة الفرقان تبارك تقل سورة الأحزاب سورة الزمر اللي بنا هي التنزيل سورة فصلت من الرحمن انتم ناس عجيبين والله عندي سورة الزخرف الدخان الزخرف ويسكت قال والكتاب سورة محمد الذين سورة الحجرات بالردي يعني locally named سورة وبدي ويجران لكن أنا معيان معيات ويجو سهلة يا قف سومالي إذا سيح من عربة ما ينوك هو عدد ما لكن ويسوع بسنة سوالات القرآن كذا واحد نقيمين 7 سبع عرفت بطغى القرآن هو قرآن لكن أنا واحد قبل 7 سبع chapters ويه وحنقول بحنا معيادة أيام الأسبوع لما سبت ثلاثة خميس ها ولا تصدق والوكل المي إن وحاب يجري السبع واحدة يوم طبعا شاري توقف هذا صوت بسيط حلقة سمعين أيام قف ولي بعيد وقارن أيام ولسه الجيبين بوريس ها والوكل means of education كيف وأيو يعني وحاب كنت النغمة موسيقية يعني قفكي وقرأ حيسنا أيام هذا كله يقولون أخرنا أيو is different مركز اللي لا أخرنا أيو أو اللي شيء قرينا أيو اللي نجيبين أيو فهمتي هذيك ويسألنا هذا كله من الخبر يسوون في هذه اللي لا وعن سميني مثلا سورة الرحمن قراءة المحيط سورة الرحمن وحكى آيات كثيرة كلما فبأي آلاء ربكما تكذبان آيات كل سنة قرنا يعني شاكر كرما يوكل يسير كرما يوكل يسير فبأي آلاء ربكما تكذبان كرما فبأي آلاء ربكما تكذبان كرما خلق رب بأي آلاء ربكما رب المشرقين يخرج ما ولا جوار الإنشاء يخرج كل من ولا جوار يعني واحد كل سهل ليس كل من وسط هيس يعني واحد كل سهل ليس هذا وسط أنا واحد كنت أيام مارتي أنا واحد كنت أيام مارتي أنا ولا كم حنا غلطت كل حنا السنة غلطت الجفاية أنا ولا كم حنا غلطت حنا السنة المزداسي يعني قرآن هو السنة وصبح الجفي سنة المزداسي لكن قرآن هو السنة ما الجفي سنة لكن عرف يا أستاذ برو يا برو سوماليين تبع يا برو سوماليين تبع and yeah Somaliyiintii ma yeah hay korwalba hay Somaliyiintii culumta islaamiga sida quraanka iyo xadiiska waxay noo sahashay waxbarashadii intii hadda aan idin soo sheegay kaalmo weyn ama kaalin weyn bay ka geystay waxbarashadii Soomaaligi ha ahaato islaami hatta غير islaami waxaan xusuustaa مثلا markii ay gumaystayaashu yimaadeen waxaana la baraayay afaf kale oo afaf gumaystayaana la baraayay anigu waxbarashadii waxaan ku soo koobsaday Talyaani ma garatay dugsigii oo elementary aan Talyaani ku qaadanayay haddii uu soo galo arday aan quraan soo baranin iyo aniga ka ficlaan jiray weligeed waayo ardaygan dugsi soo marin حتى قلن كسي لو قبصدا دب كو قلن كستا هاتو الى قبصشada nafteeda waa wax weyn baa ku jira marka way noo sahlaysay yani ay tacliim maadaama aad already ad base kaaga oo islaamiga ah oo jiro wax barasho kasto way ku sahlaanaysaa af kasta way ku sahlaanaya ardayda Soomaaliyeed xiliyadii gumaystayaashu xataa markay dibadahaas scholarship u aadaan kulligood waxay ahaan jireen successful magastay
afkaan cusub af kasta ha ahaado siini ha ahaado ruusi ha ahaado ingiliisi whatever dhaqsay maaragtay loo qabsan jireen macallimiinta Europeaniska ama Maraykanska aad bay u amaanayeen ardada Soomaaliyeed markay u compare gareen arda kale oo Afrika ka timid maxaa taa keenay wax kale ma ahayn waxa ay Soomaaliyeyntii waxbarashadii ina soo martay Soomaaliyeynta waxbarashadu waxay dhiirigelinaysaa ama u horseedaysaa qalabkii aan soo sheegnay qalabyadii faraha badnaa technology faraha badnaa haddii oo aan la Soomaaliyeynin waxbarashadii Islaamiga Soomaaliya intaasoo qalaba nooma ay soo baxeen oo waliba waxay keentay isku filaasho maanta عام 2018 waxa laga yaabaa ilaa maanta inaan maartay dibadaha ka keeno wax lagu barto wasday yani laakiin waagaasi Soomaaligu wuu isku filaa waxbarashadiis way u dhaneed min alkitaaba walqira'a walfahm inta way u dhaneed Soomaaliyeynta waxbarashada Islaamiga waxay keentay in xarumo fara badan ay dalku ay ka furmaan oo lagu barto diinta hore waxaan idinku soo sheegay dhowr xabo laakiin riwaayadii dambe way ka sii badanayaan waxaa jira magaalooyin fara badan oo Soomaali ah oo loo aadi jiray waxbarasho oo Islaami ah loo aadi jiray ardada imaan jirtay xarumaha waxbarashada Soomaaliyeed ma ahayn kaliya Soomaali waxa laga imaan jiray Ethiopia laga imaan jiray waxa laga imaan jiray أفريقيا الشرقية الجزيرة العربية جنوب الجزيرة العربية خاصة حضرموت اليمن أرضا كإيمان جرتي الصومالي وحكو برنجرتي صوماليينتي وحبرشاد الصوماليات وحي أن سرق قاضي أما سو صارتي علمه ومدنان إيا الشرف كويا شيء في العالم الإسلامي علماء الصومالية ورنا هانتي laga qadariyo lagu sharfo lagu xishmeeyo dunida muslimka أنا مثال يربع ذيك السيرة مثلا المحدث قف حديث كعان كواها صوماليها قرني فريتونات المحدث الشيخ عبد الله يوسف ابن محمد الزيلعي وحول من آية 1361 في مصر يقول انتي ودتك مصر وهذا حرينتي وحريبوها وحو سمينا يا كتاب لي هذا نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية وأحد المراجع الأساسية في الحديث يا تخريج أحاديث الهداية قف صومالي بسميه في الفقه الفقيه الشيخ عثمان بن علي الزيلعي عثمان علي الزيلعي وحو قري 6 أجزاء وفي المذهب الحنفي واللي تبيين الحقائق لكنز الدقائق تركيا اليوم هذا إسرائيل ما يعيش هذا الشيء ويقرنا يعني الغياب إني سنوين وصوماليا مركونا وشيكتان تبيين الحقائق وفق قري الزيلعي وأحد علماء الصوماليين ووحو لمنايا كن سدح بقول لبي أفرتكي في القرن الرابع عشر الهجري الميلادي يا يمين مثال آخر في الأدب الشيخ عبد الرحمن الزيلعي الشيخ عبد الرحمن الزيلعي قصائد كأدبي كو أماني وحال بربر دقا قصائد يعني شعراء هوري النبي أمان جري سيد حسان بن ثابت كعب بن الزهير البوصيري أيو لمي دي هاي جامعة مسلم كوالو درسا الزيلعي نبي أمانة النبي وأماني والو درسا الزيلعي وحكر عنكو أها صرفك إيو علوم تلحريرته نحوها وحكو أسنيا يا سيد قولنقول في غرب الصومال فتح اللطيف كتاب اللي هذا سميه أو شرح حديقة التصريف قبل يدي يسيبيل بيسوق اللي المجموعة المشتملة رونانتي وشخصية لها قيمتها
الإسلامية والصومالية. مشايخنا أو رنتي أو نوعاسي ويفربدين لما سو كوبي كرو حتى في القرن التاسع عشر أمثال الشيخ أويس القادري أيضا أركيزا واحد أركيزا الشيخ قاسم البراوي واحد أركيزا الشيخ نوراني صابري واحد أركيزا الشيخ عبد الله القطبي. مشايخ كثيرة وبحر كوه في علوم اللغة والفقه والحديث وما أدراك والأدب. Soomaaliyeyntii culumta islaamiga waxay kaloo soo saartay aqoon-yahano oo afaf badan wax ku qora. waa dad multilingual. bani aadamka waxaa waaya hadduu hal af unu yaqaano waa la dhaamaa. waxaa dhaamaa qofka labada yaqaano bilingualka ah ama qofka multilingual ah ama biglottal. culammadeenii Soomaaliyeed waayadii hore intaasoo af bay yaqaaneen, intaasoo af bay wax ku qoraayeen. of course Soomaaligu ma uusan qorayn, afafka Soomaalidu way badan yihiin, ma ay qorayn, laakiin waxay adeegsan jireen xataa markay rabaan inay afkooda wax ku qoraan afka carabiga ay adeegsan jireen. Sheekh Awees oo kale masalan markuu rabo inuu gabiyo wuxuu ku qorayaa masalan abaysitiday oo kale baysitiday abaysitiday nurkeeda mukhtaar batuula nabi af carabi ku qorantay. multilingual. marka Sheekh Awees abaysitiday masalan af maay buu ku tirinayaa, wuxuu tirinayaa ayadoo kale ama qasiyado kale afkiisii Chimbilazi afkan la barawaaniga gabayuu ku leeyahay. marka af maay, af Chimbilazi, af maxaa, af carabi marka waran qof intaa adeegsan karaayo, qori karaayo, akhri karaayo, fahmi karaayo, weliba ku gabyaayo. qof afaf aan afkiisa ahayn qof ku gabyaayo ka warnado soo yaab male. waxaa jira culamo kale Soomaaliyeed oo Soomaaliyeynta islaamiga ay keentay oo kamid ah waxay sameynayaan, way gabyayaan, quraan bay ku gabyayaan, xadiis bay ku gabyayaan si ay ugu sahlaan caamada Soomaaliga. qofka Soomaaliga oo geel jiraha ah ma garatay aan carabi akhrin aqoonin oo af kale aqoonin, waa culamaa jirto oo axaadiis iyo aayado quraana ku gabyay oo marka dambe asigoo geeriisa la jiro ayuu fahmayaa. ilan gabayga waa waxyaabaha ayna caan ku nahay wey. culamadaas waxaa ka mid ah masalan الشيخ عبد الله إسحاق. هل سمعتم عنه؟ الشيخ عبد الله إسحاق وأحد المشايخ الصومالية وقرآنكي إيو محاير هذا أحاديثي كسمي إيشك الصومالي. الشيخ قاسم البراوي هورaan usoo xusnay. mashaayikh waxaa jira noocaasi oo quraankii bay ku gabyayaan afkoodii ama af baraawi ama af Soomaali ama af maxaa tiri. marka qofkii isagoo miyigiis ka jooga ayuu ma xukmu masalan ayaa la oranayaa haddii masalan ay gabar la furay ciddadeedu intay tahay waa loo gabyaya. gabay bay ayaa soo aroray baa leeyahay. Soomaaliyeyntii waxbarashada islaamiga runtii waxay aad iyo aad u xoojisay fahamka diinta naftiisa. fahamka diinta ay sii xoojisay, waayo wixii afkaaga lagu sharxo way ka sahlan tahay wax af kale lagu sharxo. su'aalo adag ay imaan doonaan. marka waxaan isku dayay kolleyba macallin inaan ka jawaabo. su-aalaha qaarkood way isu egyihiin, way isu dhow yihiin, isku mawduuc bay ka hadlayaan, marka kuwaas waa isu geynayaa. masalan su-aal aad iyo aad muhiim u ah waaye in laga fikiro Soomaalinimadii sidee baa loo raadisaa. waa nasiib darro runaantii
بعد قرابة 70-80 سنة وإنه مارتي سوهن هل ضل إن ما أنت مارتي دلكي وكسوي هاي إنه نقضي الدلال كانت الدول وأنا سيب درو وأنا شرف درو إن ما أنت إن intaasoo madaxweyne intaasoo maxaa yidhahdaa reer wasiiro intaasoo barlamentarian intaasoo inuu yeelanay waa nagu nasiib daro waa nagu sharaf daro aada iyo aad bayna ii taabanaysaa su-aashaas oo kale waayo anigu waxaan kusoo barbaaray ama soo dhashay iyadoo soomaali la leeyahay soomaali weyn baa laga fikiraya 5 Soomaaliyeed baa laga fikiraya sidii isugu keeni lahaa ay maanta ay duruuftu noqotay in xataa midii qura oo la mideeyay la yahay khasaarahaas uu gaaray waa in tilmaamay markii hore waxaan yiri hadii aan rabno dhibaatooyin aan ka baxno we have to go back waa inaan dib u noqonaa bal station maxay ahaan jirtay Soomaalinimadan sidii mar haddaan dib ugu noqono Soomaalinimadan sidii ku timid waxbaan ka faa'iidi karnaa markaas iyo markaasaan saadaalin karnaa ama wax ka sii dhihi karnaa maxaa laga yeeli karaya fi lmustaqbal alqariib Soomaalinimadu waxay ku timid dagaal baa loo soo galay waa loo soo dhintay waa loo soo rafaaday rafaadkii wuxuu keenay in maaragtay dad Soomaaliyeed dowladda ay noqdaan baa ayaa timid maantana tiim ma jirto oo dadkii way kala qaybsanaadeen oo kala isticmaalku wuxuu oran jiray farriq tasud divide and rule yani waayo hadduu ku qaybiyo si sahlan ayuu ku xukumi karaa nasiib darro annagii baaba isqaybinay haddaan Soomaali nahay marka qof allaale qofkii rabo inuu dhibaatooyin noo geysto annaga abu horseednay oo isqaybinay qiyaab ma farriq tasud nahnu farraqna anfusna sin maartay loo soo farageliyo sin maxaa yiraahdaa dhibaatooyin loogu sameeyo marka anu runtii rajo weyn baan ka leeyahay rajo weyn ayaan ka leeyahay Soomaalinidu inay soo noqonayso marnaba ima muuqato waxyaabahan hadda ayaamahan socdo la leeyahay in Soomaali fara badan baan ahaanaynaa gobolaan sameeynaa oo dawladaan sameeynaa ima dhadhamayso ima cuntamayso يعني ووح مرحلية يعني لقد بايوي فول أو كلا واي ويدل دون تما قلتي وحالوسو نقول دون أصلك ساني يري سو ننتي أولا نجا we have to go back to the history يعني مركز وان هذي كرينا هاي هذا سومالي أما وحنو فرما يودوين أن مارتي أن كسر ديسنا سومالي نمدي marka idinka aqoonsanina yani waliba generation kiina oo da'da yara oo dhashay 70-meeyadii kadib 80-meeyadii kadib dadkiina dhashay waxa laga yaabaa inaydan arkinba wax wanaagsan oo Soomaaliya inaydan arkin baa dhici karaysa dhibaata idin keenaysa laakiin waxaa jira taariikh xaafil oo wanaaga badan baa jira kaas ayaan ku noqon doonaa oo maxaan yiraahdaa inuu ka faa'iideysan doonaa dhowr su'aalood baa jiray ku saabsanaa yani dadka Soomaalida wax bartay oo dibadaha jooga maxaa taalintoodii iyo maxay ka qaban karayaan Soomaaliya ama maxay u maqan yihiin su'aalo la xiriira ayaa jiray aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo dibadaha jooga runtii waxbay qabanayaan ilaa hadeerta qabashadooda dhaliilina ma garatay waxba dhaliilina hawl bay wadaan sidaan idinku sheegay culimadii oo xiraysay hadda soo idin ma sheegin qaar badan oo ku dhintay Masar qaar Dimashq ku dhintay qaar Xijaaz ku dhintay qaar Ethiopia ku dhintay qaar meel kale ku dhintay haddana waxay nooga tageen raadraac yani kutubadoodii baan ka faa'iideysanaynaa maanta inkastoo aysan dal ku dhiman way dhacdaa ilaa maanta Soomaali baa dibadaha ku dhimanaya runaantii yani oo aqoon yahan ahaa oo cilmi lahaa يعني marka anigu rajadeedu waxa waaye in ii sheeg waxyaabaha ay dhaxal ahaan looga tagayaan ee dalku wax u faa'iideyn karayaan anigu inta tabartayda waxbaan qoraa waxyaabihii aan qoray afaf badan bay ku qoran yihiin
af carabi ha ahaadeen af ingiriis ha ahaadeen af talyaani ha ahaadeen waxaan isleeyahay at least adcaful iimaan soomahin haddaanan frontiga taagnayn laakiin haddana waxaan isleeyahay waxyaabahan amay soomaalidu mar ardadiinaas oo kale amay wax tarta ayaan isleeyahay marka ha naga quusanina ma garatay dadaalkaygu ma yara inta allaale intaan ka geysan karaynana waanu ka geysanaynaa marka culammada dibadaha ku maqan waxaan leeyahay hawshiina sii xoojiya yani qoraaladiina badsha dalka imaada haddaad imaan karaysin qaarkood malaa laga yaabay inaysan imaan karayninba laakiin yaana laga quusanin ayaan leeyahay qolooyinka noocaasi iyagana su-aalo ayaa waxaa jiray oo ku saabsan afafka soomaalida gaar ahaan afka maayiga oo dhahaya af maayigani xagoo ka dhacay af maayigii miyuu dhintay mise wuu jiraa ilaa heer su-aalaha qaarkood waxay dhahayaan dadka afmaayiga ku hadla qaarkood afmaayigaba way ka xishoodaan oo kale ayaa ku jirtay su-aalaha qaarkood waa wax runaa wax jiro weeye soomaaliya haddaad xusuusataan ilaa 1972 ka hor af qoran ma jirin soomaalidu way hadlaysay waxay ahaayeen umma shafahiya iska hadashay 72 ayaa la qoray hal af oo Soomaaliya ayaa la qoray kan kulli ma shaqeynaan waana is hadli karaan umma shafahiya ayaynu ahayn maxaan ilaadaa aan waxu noo qornay nasiib wanaag 72 hal af baa la qoray nasiib darro يعني لما اعتبارين إني أفكر بالجيران يعني ويفعنا على هذه الليلة أوكي يعني هل أفضل قرية وين كايو أنسكت دينا بالقوة كلنا إن لقوري كلا يصير لجيل لا هذا تاريخ ده أفكر كصوماليد حوالي ذيك التعطور أنت كان لقورين وحاجري جدية لرادودي في الصومالي جينا قالوا عشان مشغولين جيرين واحد هذا فرق صومالي أو عشان الصومالي أفكر كذا كجيرو ما هلي كنا فرق أو أسلوب الجلسة إنه قفل بكفرون كرايو ومركا أسلوب الجلسة أسلوب الجلسة إنه غير لسه ما يصير أصحاب تيسير هذا ليس فرق بعيد ما هنا وحلو مغنى فرق بعيد ما يتوه هذا كيف حلا قري أفضل قري يعني أفكي والله صحتان لاتن بيست لاتن بكسر السنة مركا لاتن كي حتى حروفه وحاجرة أو لليري نواح صبا وصنع يصير السيد أو الله قد يع X oo laga dhigay xa iyo wax la mid ah oo inaga samaysanay dhawaaqyadaas oo Soomaaliga u gaar ahaan oo laatika ku jira way fiicnaan leh runtii bas inta waxaan ilaahay waxa weey waxay ilaabeen gudiga Soomaaliga waaga hadii ku dari lahaayeen dhawaaqyo kale ayaa buuxa dalka oo مثلا كما تاي مثلا نيا oo kale نيا نعبا jirta waxa jirta يعبا jirta waxaa jirta raac baa jirta marka dhawaaqyadaas haddii ayagana loo samayn lahay laatinka waa laga heli karayaa waxay ahaan dhibaatadaas weyna harin oo in Soomaaliya hal af kaliya oo meesha ka shaqeeyo afkii la qoray wuxuu noqday af wadani ah af qowmi ah Somali national language ayaa loo bixiyay weliba waxaa loogu naaneysiyey waxaa la yidhi waa afkaaga hooyo afkaaga hooyo bas yadaro dad yooga aan afkooda hooyo uusan ahayn wayba insult bay ku noqday yani jug baa gaadhay waayo ardaygii oo markuu dugsiga tago oo Soomaaliga maxaa tiri soo baraayo oo la leeyahay waa afkaaga hooyo markuu guriga tagana oo hooyadii afkar ay ku hadasho walaas badan baa soo kordhay marka waa laga badbaadi lahaa waxaa dhacday dhawaaqyadan oo maxaa tiriga aan ku jirin dadkii lahaa xataa markii magacood la qoro magaciisa wuxuu soo baxaya magac nooc kale مثلا qof baa waxaa la yiraahdaa let's say Iddiraan Masak waa qof magaciisa saddexan waxaa la qorayaa inuu askari noqdo Iddiraan Masak maalinta markii la register garaynayo qofka qoraayo wuxuu oraa Iddiraan muxuu ahaa Iddiraan waa la tarjumi wuxuu noqonayaa Abdulrahmaan weligii isuma maqlo qofka magta abidkiisa intuu jiray wuxuu isu yaqaanay Iddiraan
أبها أبيين وحلودين مد ماذا محوية ماذا واحد هو محمد مركب قفكي وحلودين عبد الرحمن محمد مساق ساقان وإسحاق أوكي مركب قفكي وحلودين هذا كذا عبد الرحمن محمد إسحاق والله كورم قفكي وبيقولوا صوت هذه المقابل سيناء وموعظة أنت اللي يجي كنت هكاي توا عسكري هكا تاجم والله وعي مقعيده هذا هو وايكن هذا هو وايكن وعي سمرة اللي أسيبه ما هو أسمه كيسو اسمه تاجم لكن تاجمكي وبرها ويار مثل الحين سقال باتري وايكن وقتها كانوا واكين وكعلن markaasoo muxuu sameeynaya wuxuu leeyahay hadda ay wax ka dambeeyay markaan idin yeero qofkan uu yeero xagga ha istaago sidii baa dhacaysa xaggaasay wada safayaan idiraan kaligiiba meesha soo mutaxayeen magaratay Abdurrahman intii loo tagaa wariya magaca markaasuu la idiraan masa waxa kan nacsiga aan magaciisa taa aqoon darbaaxa taa in loogu daro ayaa dhici karaysa waa askari magtay you can imagine marka waad qiyaasi kartaa qofkan wuxuu ugu xishoonayaa afmaygan oo kale mararka qaar kood dhibaatooyin baa soo maray qofkii magtay magaciisa waxa taa garan waayay baa leeyahay magtay waxa bullying iskuulada bullying waxa la jiro magtay haddaad iskuulkii intaad lecture macallinkii wax ku akhriyo aad tiraahdo maanta anaa wax jeedinayo oo afkii mayga markaad ku jeedinayso ardada oo asxaabtaadii ay muxuu ku hadlayaa wariyaha Soomaali ku hadal wad gabanaysa mogtay ila adigu waxaad ku hadlaysid miyaysan Soomaali ahayn ba ay soronaysa marka dhibaatooyinkaas jiray oo af Soomaaliga dhaawacaas ayaa soo gaaray oo ahayd in dad magacyadooda xataa ay qaldamaan waxa imaanaysa askarigaas dhibaatada ku dhacday markuu ilmo dhalo wuxuu leeyahay ilmahayga inay dhibaatada ku dhacdo mar rabe waa inaan u baxsha qorsheel something like that you know jaamac si aan loo takoorin mogtahay ya waayo haddii aan u bixiyo emed oo kale dhibaata ku dhacaysa ya magacyadii oo dadka ay lahaayeen baaba lumaayay isla markiiba axsaan baan u sameynayaa inankayga wuxuu magac waxaan u bixinayaa kuwan ay afka la qoray ay maartay ku ansaxayaan maxaa imaanaya oo kale oo dhibaatada oo afkii maaga ku dhacayso gabdhihii yani masalan magacyadoodii waxay noqonayaan yasmiina ismahaan magacyo aan lagu aqoonin afkii maaga maartay ayaa soo baxay ay ka soo buuxsamayaan qofkii wuxuu ka xishoonayaa mar hadduu magaciisa ka xishooday afkiisina oo ka xishooday dhaawac weyn baa gaaray runtii qofkan gumaystuhu malaha hadday baan idin sheegnaa gumaystuhu jinsi male dad male waa dhaqan gumaystayaashu waxay ku oranayaan way ku muquuninayaan xoog bay kugu qabsanayaan waa kaa xoog badnahay tabartaadii baan ku tusaaya waay dhaqaalahaagii baan labaad kaa qaadanaya waxaana kugu soo rogaya dhaqankeygii baa kaaga ka fiican Uncle Tom waxa la maqashay weyn Uncle Tom waa Black Americanski baa waxa way kuwa iska dhigaya cadaan iska dhigaya marta marka waxa bilaamaysa ninkii maayiga ahaa inuu iska dhigo maxa inuu iska dhigo ayaa imaanaysa waayo haddii kale promotion ma helayo waxaa laga yaabaa inaan shaqo fiican la siinin marka cudurradaas waa cudurro psychology nafsiyan ayay maartay dhibaato u dhacaysa alxamdulillah yani waxaa waaye afmaygii asigii qudhiis hadda waa la qoray waxbaa far buu yeeshay alxamdulillah afmaygii Soomaali oo dhan way ogolaatay fi caam 2003 عام 2003 Embagati conference waxaa la ogolaaday ama la ansixiyay Soomaalidu inay laba af leedahay Soomaalidan maqlin maay wili maaga la soo hormaray maay iyo maxaa ay leeyihiin baa leeyahay constitutionally dasturiyan af Arabigana maadaama aan Arab aan sheeganay oo inaan ahayn la yiri ayagana afkaasna uu ku jira marka halkaas waxa ka soo muuqanaysa af maaygi inkastoo dhibaatooyin badan ay ku soo dhaceen in mar labaad inuu soo kaco oo soo kobco oo noo noqdo af labaad oo asna qoran runtii waa faa'iido wax weyn bayna taraysaa
haddii afafka iyaga Soomaaliyeed giddigooda la wada qoro oo waxay noo noqonaysaa horumar ma garatay idinku masalan hadda markaad shaqo raadinaysaan soo ma samaysaan wax la yiraahdo resume ya CV baad qoraysaan waxaan idin oranayaa CV-giina ku darsada kuwiin labadaba yaqaan waxaad oranaysaa aniga labadaba waa aqaan adaa rajo kale ninka mid kale yaqaan ma gasday hadduu qofka maxaa tiri kale yaqaan oo adna aniga maxaa iyo maayba waan aqaana your chances to get better job is there haddii mid saddexaad aad taqaanid uu qornaan lahaa afjidu aftuni afdabare maanta dhan wadi karna afaf badan baa jiro u baahan in la qoro idinka idin taala dhalinyarada maartay hadda jaamacadaha ku jiro oo ku takhasusi doona afafka waa loo baahan yahay afafka iyaga Soomaaliyeed gidigood in la wada qoro oo maxaan yiraahdaa ay noo noqdaan afaf maartay aanu ku wada faano yani waayo haddii lagu yiraahdo afkaaga waa laga fiican yahay waa dhibaato taasi waxay ahayd calaamadihii gumaystayaasha ahaan jirtay haddii qof Soomaaliya oo qof Soomaaliya kale oo ku impose gareeyo ama oo tuso in laga afiican yahay aniga waxaan u taas waa qalad waa in laga qabtaa qalad weeye faa'iida noogu jirto the more afaf aan leenahay the more inuu maartay horumar fiican aynu gaari karayno su'aalaha afka mayga marka waa taasana uga baxaya waxaa jiray su'aalo kale oo personally aniga dhahay waxyaabaha aad qortay xagee laga heli karaya technology maanta runtii aad buu fiican yahay yani haddii aad gashaan haddaad aniga magacayga haddaad google garaysaan maxamed xaaji mukhtaar haddaad google garaysaan waxyaabihii aan sameeyey isla markiiba way kuu soo baxayaan haddii kale waxaad geli kartaa jaamacaddayda Savannah State University college-kayga oo la dhahay class College of Liberal Arts haddana way kuu soo baxayaan waxyaabihii aan qabtay ilaa maanta marka see loo heli karaa su-aashu saasay ahaydee waxaa weeye jaamacadaheenna xamar ayaa loo baahan yahay baan u malaynayaa individually haddaydan u heli karaynin waxyaabihii masalan ay qoreen Soomaalida dibadda joogto waa in ay jaamacadaha isu xil saaraan jaamacadaha xamar jooga inay isku xil saaraan waayo ayaga awood bay u leeyihiin dibadahaas ay aadi karaan aduu ma aadi karaysid inay idin keenaan waxyaabihii aan qornay oo library-ga xataa meel khaas ah ay idin dhigaan si aad uga faa'iidaystaan kuwa online way jiraan aad ka heli karaysa automatically online baad geli karaysa e-book waxaan la yiraahdo yani e-book electronic books way ku jiraan haddii oo asxaab aad ku leedihiin dibadahaas ku dhawdo waad oran kartaa hore buuggaas ii soo iibi nasiib darro waxa way cinwaano ma lihidin oo wax lagu diri karaayo ya unless habab kale idinku ogtiin idinkaa noo sheegi ani haddii la yihahdo buuggaaga see baan ku helaa waan kuu soo diri baan ku dhihi lahaa lakiin meesha lagu soo diri lahaa cinwaan thaabit ah ayaan meesha jiri karayn baa laga yaabaa laakiin jaamacaduhu waa inay iska xil saaraan waxyaabaha ay culammada Soomaaliyeed ay qoreen si ay ugu keenaan ay ugu sahlaan ardadooda maartay jaamacadaha ku jiro su'aalo aad u macmacaan baa jiray oo kale oo masalan ii sheeg oo ka hadlaya tacliinta islaamiga sidee baa loo sii xoojiyaa waxaan u malaynayaa waa annaga inoo taala tacliinta islaamku cid kaale male runtii ya yani mararka qaarkood waxaan tuhmayaa inaan ka sugayno dadyow kale inay tacliintii islaamiga Soomaaliyeed ay xoojiyaan dadaan meeshaba joogin ummado kale inaan ka sugno ilama ah waxa waaye in annagii iska xil saarno sidaan kuwaan idin sheegayba ay u sameeyeen technologies oo u gaar ah oo horumarinaysay waxbarashadii Soomaaliyeed limaada maanta oo teknolojiyada ay ka sii fiicnaatay maanta waa inaan samayn karaynaa oo aan maartay horumarinteeda iska xilqaami karaynaa aan gaarsiin karaynaa ummadaha da'da yar aan gaarsiin karayno marka waxaan leeyahay yaan laga quusanin yaan cid kalena lagu halaynin in maartay ay noo sameeyaan tacliim islaamiya islaamkeennii kii Soomaaliga bisraaxa yani Soomaaliyeyntii islaamiga anigu waxaan weli aaminsanahay inay ay tahay habka kaliya aan wax ku baran karayno inay noo tahay su'aal aad aan u jeclaystay baa jirtay oo dhahayso haweenka gabdhaha Soomaaliyeed xagga waxbarashada sidee bay uga bixi karayaan duruufaha maanta haysta oo ah in maxaan iraahdaa aysan helin
fursado ay wax ku bartaan waa wax jira way runtii waa wax laga xanuunsado waa wax aabba kasta oo gabar dhalay waa wax qof kasta oo gabar ay walaashii tahay oo ka xanuunsado waay maxay ku dhacdaa in gabdhihii Soomaaliyeed ay tacliintu ay ugu yaraataa ay tacliintu maxaa yiraahdaa loo siin kari lahayd ama ay u heli kari lahayd fursadaha maanta jira xadiidkii waa tan hore u soo sheegnay على كل مسلم ومسلمة لما دهن مسلم ويل كلي لما دهن سما قلنا قبلها إن دبعتها هيست وحوي لغن باجرة أو رنتي آدو أذك لغن كيني آدو أذك هيا أدي ذا وحيابها قاركم قبل في عز شبابها أيضا دوري تنجرها هيا لجورسنا هيا سما قلنا ولا جورسنا هيا أنا وحن حسوس قبل بدن أنا سكلاس هنجري مركان إلمنتري اللي هنا وودي كاري واي إني ميدل سكول آذان وايو isla markiiba warba yeelatay hooyay noqotay ilmay dhalaysa waxa kada waxa loo baahan yahay in la helo yani waalidiin oo ku kaalmeynaya hatta haday taasi dhacdo hadii gabadhii ay ilmo dhalayso oo rabto inay wax barato in la helo waalid oo ilmaha u hayn karaayo artay iskoolkeeda in aado ay wax soo barato soo noqoto ilmaheedii يعني مثلا في الغرب مشكلة غربيين وحاجة واحد هذا day care يا الميه بعد كده جيسا ضدن وحبي يسويهم بعد كده جيسا الماس الوقتين بدل ما سووا جارا ينكسروا هذا اللي هي وحبا قبله هو كفاية إذا يستين day care وايو at least دولتي بكو كالمية إن لي رادو هذا الشيء المها جميل أتجيستي بنكو كالمين هنا dhibaatadaasi waxa looga bixi karaa hadii hooy ay ilmahan ayeydooda ay joogto habaryartooda ay joogto eedadooda ay joogto ayaa sii dhaamileed marka min naahiyat al-aa'ila al-usra daata inaan ka fikirno waay gabadhii saan u kaalmeyn lahayn ayadoo waxna hooyana noqon karayso isla mar ahaantiina ahaan karayso qof wax baranaysa ay ahaan karayso inaan raadino anaga in saaran tahay run ahaantii bulshadii Soomaaliyeed badideeda bulshadii Soomaaliyeed badideeda ayaan ogoleynba gabadhii inay wax noqoto inay meel gaadho waa caamil haday waa idin sheeg jahligu dhibaato u leeyahay ya qofkan u diiday gabadhan inay wax noqoto ay wax barato waa qof aan aqoon saasa lahayn waa qof jaahila jahliguna waa cudur dhibaato badan uu ku keenaya fa idan tacliintu wataan idin waxa soo dhanbay ka ilaalinaysa marka aabbo wax yaqaano u malayn maayo inuu gabadhiisu diidi karaayo wax barasho aniga alxamdulillah عندي 3 أطفال أنا سو كوريي لبابا وقبله ويلكيجو أنا أيدي سيو واحد أورنجنا هذا ويلكي ريرك هذا هو ويلكي وابو وريرك واحد يسوق عتي إنه قبلها في عين مرتي واي ويلكي اليوي أنا مركب واني ويلو واحد كويري قبلها أنا أديك أنا أبا إذن أنا أحكمكم بريبورت كارد سكولك بالكسب ريبورت على صدره وحو سمايه قفك هذا هذه قبل كليدت هي يغفران ان احسان غونيه كو سميناyo laakiin ayay waxa leedahay waa wiilki markay ziyaaro aadan ayay sigay lacag u badinaysa waa wiil weeye moogtay waxba u baahan yahay samagan gabadh waxa lama siin maayo gabdhahayga alxamdulillah way wada koreen way wada fiican yihiin in fact fi عام 2016 gabadhaydii she ran for office in Somalia inaan maqashay kala maqal Subayda Mukhtar waxay isku dayday inay dibutaati noqoto wartay وانا كنت اشجعها وانا u sheegay oo u digay waxaan dhahay dhageyso saysan shock ugu dhicin bulshadaani gabar ma ogol marka waxaan qabiilka la yiraahdo waa nidaam jaahili way mugtay القبلية هي نظام من نظم الجاهلية وحول ليها ما قبل مثل ميس ما قالن أنا قبل سبيدة هاد يعني تيبا كل عيس وحول ليه ما أنا قبل ما جيسن كرينا لكن وكيف فايدي وحياة بعضهم بيوقاتي أي برته شو ما تقولين برك قبله ولايس كاس باجرة وإذا هيسته ظروفها باجرة أو جاهليدي كدن بيه ظروفها سباجرة أو كقاضية الحريات وإسلام كفو أقول هذا الإسلام أعطى الحرية للرجل والمرأة
يعني ما في القرآن وحولي مركلة المامي المؤمنون والمؤمنون القانتون والقانت يعني وضعيس كل رقيها وين بلغ شيكينا يا مقرتي ما جرتو ميل دهايو يعني قبله يعني حلقه دمو waxyaabaha qaarkood haduu islaamka diidi lahaa haduu islaamka u diidi lahaa gabdhaha inay xuriyad yeeshaan yani miyuusan oran kareen mesela ramadaan baan hadda ku jirnaa miyuusan oran kareen rag 30 ha soomeen gabdhuhuna 15 ha soomeen lama dhihin waxa la waa wada soomaysan 30 salaadaha waajibaadkii islaamigii waa kulligood waa layna wada saaray limaada xuquuqdoodii marka maxaa loo diiday taasi waa wax u baahan in lagu noqdo oo maartay aan isu sheegno waalidiintuna aan ka waanino aan u sheegno maanta run ahaantii gabdhihii markii loo ogolaaday ii sheeg inay wax baran karayaan ayagii baa ka fiicnaaday wiilashii hadaa runta rabtid anuu dhowr iyo 40 sano macallin ahay kalaasiyadayda kuwa kaliya oo committed ah oo runtii shaqada si fiican u soo qabanaya ayagoo reer galbeed ayagoo Mareykan gabdhaha ayaa kaga fiican wiilasha markay noqoto wax qabasho markay noqoto wax barasho waa dad committed ah marka fursadaas baa ka maqan mooyay gabdhihii hadii la siiyo fursadaasi gabdhahayni maartay way ka wada ka soo baxayaan waajibaadkooda mas'uuliyaadkooduna way qaadayaan xuquuqdooni annagu baa ka hortaagan mooyay way helayaan hadii la yiraahdo marka fahm islaami ayaa noo naaqisa hadeen fahm islaamigaas aanu galno waxaan u maleynayaa wax dhibaatooyin ma gaarayaan su'aalaha kala badnaa lama soo koobi karo aad bay u badan yihiin waxa ku jiray su'aalo oranaya dawlad goboleedyadan iyo waxaan maartay sida warkaysa miyay shaqeyn karayaan mise yihiin anu shakhsiyan hadi mabda'i